Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaan sameyn doonaa baasta lisaanyo. Suugadu waxay ka kooban tahay basal, barbarooni oo 3 nooc ah, yaanyo mirooley, yaanyo heshiid, kabsar caleen iyo toon iyo hilib shiidan. Saliidda ayaan dabka saaray. Qudaartii idin soo sheegayna waan ku dalacayaa. Waxaan ku darayaa maraqii cusbo, maraq digaag, basbaas iyo kabsar caleen iyo toon. Intaa markii ay isku khalaysanto ayaan hilibkii ku daraynaa. Barbarooni iyo basal iyo baradho ayaan kor uga daray si xoogaa ugu dambeyn u khalaysanto. Intaas koob biyo ayaan kadib ku darnay waana daboolnay. Inta suugada bislaanaysay baastadii ayaan biyo u karkarinay oo ku darnay. Baastadii iyo maraqii waxay noo noqdeen diyaar. Hadda waxaan soo gaarnay xilliga aan maraqa kor saari lahayn oo safi lahayn baastada. Baastada ayaan safaynaa oo dhalada ku safaynaa, kadib maraqa ayaan kor saarayaa. Markaan maraqa saarana cheese ayaan ku shubayaa. Saf ayaan kala kor marsiinayaa, saf ayaan u sameynayaa baastada. Intaas ayaan gelinaynaa ovenka. Heerkulkuna waa 330. 30 daqiiqana wuu ku jirayaa. Intaa kadib waxaa ku soo baxaysa lisaanyo aan la arkin oo la maqlin, aadna u macaan badan. Intaa kadib walaalayaal, daawasho wacan, like iyo subscribe iyo wax walbana ii saara. Mahadsanidin.